yaraa waxaan ahayn ciyaal primary schoolkaan dhigan jirnay waxaan karaa de waxaan malaynaya waa jacaylkii ugu horeeyay aan sameeyey oo markaa adigu waxaan iska ahaa ciyaalka xaafadda imka khamiis baan xidhay marka waxa dhacday maalmaha ka mid ah anigoo facebookan ku yara caajisay dadkii horaan xoogaa ku yara caajisay kadib waxaan codsaday dad cusub oo dadka la yidhaha yuumaynowda dadka laga yaaba inaad garanaysid baa codsaday kadib codsaday yani wax ka wada ku darsaday friend okay kadib dad baa isoo aqbalay dadkii isoo aqbalay inta online ka baad la hadlaysaa kadib waxaan la hadlay inan online marka ahayd aan ku uri salaamu calaykum wacalaykum salaam markaa si degdeg igu soo jawaabtay waana inanta qisada ku saabsan tahay waana inan aan garanayo oo dusha ka garanayo waana inan ay wiil aan asxaab nahay oon dadka ugu jecelay ay xidhiir lahaayeen markii ugu dambeysay marka adigu waxaan ku uri assalaamu calaykum salaam sidee tahay walaa xaggaa joogtaa adigu description ka baasiisay marka waxaan ogaaday inay inantan tahay inanaan isku fasalnahay yani grade 8 iyo grade 8 baan kala ahayn laakiin isku kalaas maan ahayn kalaaskayguna wuu isku dhegsan yahay waxa weeye kalaaska nagu dhegsan buu ahaa kadib markay warka ay siisay aan arkay inantu inay maasha allah ay aniga xiisaynayso yani ay degdeg igu soo jawaabayso oo kale ilaa muddo 3 habeen baan wada sheegsanay ilaa waqti dambe aan isku gaarnay marka habeenkii dambe waxaan isku dayay inaan badee maadaama si ay ii soo dhaweynayso naxariis baan ka dareemayo weerar baan ku qaaday marka waxaan ku iri heblaayo ma jeclin magaceeda inaan sheega xiriirkaaga hore ee hebel aadaad ahayd xaguu ku dambeeyey marka ayada ku sheegtay mise waad ku ogeed inay qof xiriir lahayd hore dee ciyaalka xaafadda waa la wadayahay labada sheegsta waa caan ha meesha joogtiin intee markaas Hargeysa okay iskuulka dhiganaysiin wuxuu ahaa iskuulka bulaala la dhahaa laanta hawada loo yaqaana bulaala iyo laanta hawada isku mid waa labada oran karta laanta hawada xaafadda ku yaal isagana bulaala la dhahaa sax iskuulkaas ma dhigan jiray 8 baan wadahay oo markaan sheekada bilownay bay ahayd marka inantu galaaska nagu xigtay bay ahayd so isbarashadii baan ku waday yani su'aala weydiisaa jirtaa tiri oo xiriirkii intuu ku dambeeyay qofkii la socotay aawe saaxiibka kaasi ku tiri oo aniga bir hore kala dhamaanay kadib dib aan u istaagay maadaama iyadana ay dhaqsigu soo jawaabayso hadallo macaan ay leedahay xiriirkiina aan de xoogaa ka shakisanahay habeenkii shakadii waan soo gabagabeeyey subaxii waxaan tagay wiil aan aad asxaab u nahay halkan ka salaamay istiqaad faarax la yidhaahdo waxaan ku iri saaxiib heblaaye iyo hebel marka wiilkana waxbay isaga isku ahaayeen heblaaye iyo hebel arrintoodii ka war isagoo war buuxay muusiinin wuxuu igu iri niyow baryaha iyagoo hadlaya ma arkin laakiin ma sheegi karo isagii baan toos ugu tegay wiilkii oo maadaama ninkan ixtiraam badan naga dhexeeyey waxaan ku iri aan dadkuna isku ogaayeen waxaan ku iri niyow inantii heblaaye ahayd iga war ma odhan iyadaa waxay ku tiri waan la hadlay xamar warkeedii siin baan ku iri okay laakiin adig maxaa kaa galo intaas dhan u samaynaysa ma xiriir ay kusoo bandhigatay oo waxbaa rabtay inaad wada samaysiin maxaad baaritaankaas u raadinaysaa adi baaritaanka waxaa keenay maadaama ay ii danaynayso aniga laftaydu dee waad garanaysaayo aniga laftaydu xaggeeda way soo jeedeed okay markaa si aan sheekadeedii aan iskaga hubiyo okay aan hore isku galno ayaan iskaga hubinaya maaha kadib wiilkii mamtiga waxaan kuli heblaayo ka waran wuxuu guniya beri horaan kala dhamaan naqas weyn bay iga soo baxay maadaama dee ay run labaduba sheegayaan toos markaa mobilkaygaan kusoo noqday markaa mobilka waan ka tegi jiraan filaya mobilkaygaan kusoo noqday khadkii waan soo galay sidii adugu sheekadii way kusii bilaabantay ma odhan hebel baan soo weydiiyey xama odhan weerarkaygii baan halkii ka bilaabay sax kadib habeenkii afraad ama shanaad meelahaas waxaan ku yidhi heblaayo waxaan rabaa mid shaydaana baa baray marka waxa weeye sideed uga dhammayn kartaa inana isdoonaysaan process yar buu baray marka waxaan ku yidhi heblaayo waxaan rabaa inaan qalbigaaga soo galo iga fur sigu tiri hay waa diyaari soo gal yani qalbiga inaad ii furto hay waa diyaari soo gal hay su-aal baan ku ciyay waxaan ku yidhi qalbiga albaabyo badan buu leeyahay tusaalahanka walaaltinimada saaxiibka iyo loofinta sababudar iyo ka jacaylka markaasaan ku yidhi keen ka soo gala haye kaad rabta ka soo gal marka baaska waa lagu dhigay moogti waa in adigu ku laada un markaasaan ku yidhi haye ka jacaylka haddaan u qalmo iga fur markaasay tiri haye waad u qalantaa haye soo gal waan kuu furay halkii waan sheekada ku bilownay maasha allah inkastoo ay ahayd gabadh markaa muddo yar soconaba xanaaq badan oo dee jacaylka laftiisa kuba salaysan yahay dagaal haddana
runtii jacayl badan bay siisay in badan baa wada sheekaysanay maalin maalmaha ka mid a marka anigoo iska bila camal guriga jooga ay la soo hadashay igu tiri suuqan u socdaa aniga inan kale oo wax isku nahay kalena raac kadib waan raacay waan soo cararay halka waan u imi deetana baskan wada fulnay basaska ka shaqeeya Somaliland suuqaan tagnay marka suuqa tagnay inantii kale alaabta ku maqneed anaguna halkaan iska sii sheekaysanay waxaa roob baadayay maalinka gabar la socotay mise wiil gabar laba gabrood ay ahaayeen anna wiil adaa lagu wacday marka wiil keligaaga wey inkastoo saaxiibkii guri maxaad maalinka ii soo qaban weyday oo jacaylkiisii ahayd haddana may qornayn kadib dibaddan taagnayn roobka gacmaa u dhiganaysa marka waxaan ku arkay xinna casoo garansan oo suuqa markaa joogtay ma roobaa jiray roob baa jiray waxna kaga jirnay inkastoona roob badan ahayn tiix yaroo iska la dhex qaadi karaya ahaa marka roobka gacmaa u dhiganaysa kadib waxaan arkay iyo loof wax noocaas saalka ugu qoran oo hore igu sheegtay igu tiri waa markaan waxaan weydiiyay waxaan ku idhi emtan maxaa waaye waxaad maalinkii tusisay waxaan miyaa say igu tiri haa maalinkii waxaan ku tusi lahaa maalin bay igu tiri iskuulka eridiisa igu sug waxbaan ku tusaya marka aniga lafteedu asxaab kale iyo macalin iyo waxbaan ku mashquulsanaa marka maalinka inkastaan xilli hore yimi haddana maynoo suurtagelin marka maalinkaasaan weydiiyey waxay igu tiri haa waa waxaasan ku tusi rabay kadib waa soo baxnay roobka dhexdiisi inkastoo roobka waxoogaa soo yara batay haddana aan isli markii hore carar haddana markaan arkay iyagiyo iska dhex tamaashaadaya annaga waxoogaa waysadkay waan iskala qabsaday kadib baskaan soo fuulnay xaafadahan kusoo noqonay marka inkastoon xaafadahay u kala duwanaayeen haddana koodii baa raacay marka markii horaan sii soconay inantaa dhexdeeda ku jirtay markaan laakiin dambe waxay tii dad isjecel madax galayay idinku xaggaas ku mara isxigsada camal oo dee halkaa ku wada sheekasta waxaa rabtiin soo sheega marna istaawada kadib moobilkeedaan ka qaaday moobilkeedii ii dhiibtay waxay dhegeysanaysa baan la dhegeystay wuu markii gureysay horta qof aan jecelahay saa ii garab fadhiisto anagoo baska weli saa wada saaran bay intay gacanta saa soo qabatay bishan furis ay gelisay aniga romantic garden iguma jiro waa baqanayaaba qofkii dhammaan jeclaaba yaag fadhida iyaduna wax kale u jeedaa marka yani ayada ku gelinaysa gacmaha yaas ay soo qabatay tolo maxay sameynaysaa masiri saa yani laba qof oo haga baxsan camala deetana anagoo dembi iyo waxaa dhan maxasuusan waa iska haystay adigu waa soo raacnay inkastoo jeclaa inaan iyada habeenkaa raaco oo habeenkaan xoogaa sii wada sheekaysano haddana markaan bas ka degna waxay ku tiri maadaama xil dambe yara noqotay habeen noqotay inanta sii dhaweey inanta xaafadooda fogeyd marka inanta kale baska isku dhawaayeen inantii baan sii dhaweeyaan iska sii wada sheekaysanay maadaama way saaxiibkay inanta aad u jeclaa markaa saaxiibkay inantan xafladda uu dhigi doono baaba noqon doontaa maalinkii isku kay dambeysay inantan way soo socotaa markaa waxaa jirtay baa habeenkaas saas kusoo dhamaaday waxaa jirtay intaanan inanta xidhiirka la sameynin baasha inan kale jacayl u sheegtay aniga u sheegtay adoo qoftan xidhiir la leh no before intaan isoo gelin waxaa gebigeedu malaa 10 cisho ayaan ka yarba inantan iskuna baranay xidhiirna ku sameynay gacmaa la isu gelin markaas waa mar dambe wada la wada sheekaystay laakiin intaanan inanta xidhiir la sameynin ka hor baa inan kala show xidhiir u sheegtay gurniga ku jecelay deetana show cid u sheegtay mooyaane galaaskii labada galaas isku dhegsan yihiin inanta labadan waa isku galaas labada hablood midna u sheegtay midna la sameeyey